saakay magaalada Baydhabo ee gobolka Bay waa la isku hayaa doorashadii qarka ay soo saaran tahay ciidankii lafta gareena gudaha magaalada ay soo galeen qaarkoodna duleedka magaalada ay ka soo tuurayaan tiro madaafiic iyo hoobiyaal xaalad culus oo qoys ayaa ka taagan magaalada Baydhabo ee gobolka Bay waxaan isla eegaynaa wararkii ugu dambeeyay ee halkaas ka imaanaya magaalada Baydhabo waxa ka soconaysa doorashada iyagoo oo murashaxiintu ay qaateen markaasi shahaadadooda murashaxnimo ay nacadayeen in ay yihiin murashaxiin u taagan xilkan Aadan Madoobe isagoo oo wali gudoomiyaha baarlamaanka waan is casilan ayuu hoolka galaya oo tartamaya Shariif Xasan taasi waa diidan yahay war weyn ayuuna ka soo saaray macluumaad arintaasi ku aadan ayaan ku hayaa farmaajo iyo sidoo kale Shariif Gogoshi shalay ay ku baaqeen Xasan Sheekh muxuu ka yiri waa isla eegaynaa wararkii ugu dambeeyay dawladdan waxay shaacisay khasaaraha markaasi dagaalkii Muqdisho ka dhacay saacadihii ugu dambeeyay wararkaas oo dhan ayaa soo koobaya saaxiib ha ilaawi inaad nagu soo biirto saaxiibadaan u sii share gareyso waa mahadsantahay magaalada Baydhabo ee gobolka Bay xaalkeedu waa loo sahal xaalad colaadeed mid doorasho jawi siyaasadeed oo kacsan qas iyo fowdo ayaa ka taagan gudaha magaalada saacadihii ugu dambeeyay waxa la waday nidaamka doorasho ee maamulkaas iyadoo oo gudoonka markaasi ay ku dadaalayeen in doorashada madaxweyne si nabad ay ku dhacdo ilaa ay hadda ragga ugu cadcad waa Aadan Maxamed Nuur Madoobe iyo madaxweynihii hore ee Koonfur Galbeed Shariif Xasan Sheekh Aadan oo sakiin loo yaqaano raggan mid kasta rajo badan ayuu qabaa laakiin Aadan Madoobe rajada ugu cadcad buu leeyahay maadaama dawladda federaalka ay isagu wada talkaas la geeyay cabsida uu qabase waa in codka qarsoodi uu noqdo gacan taag buu ku kalsoon yahay ninkan qofkii uu arkayo inuu gacanta taago waxa muuqanaysa in maamulkaas doorashadiisa aad la isugu hayo Cabdi Lafta gareena duleedka magaalada ay ciidankiisu joogaan gudaha qaarkood ayaa soo gala saaka aroor hore oo qas iyo foodo iyo rasaas riday sida aan xogta ku heleeno kadibna waa la ciirsaday halkaas way isaga baxeen 10 Juun oo ah maalinka madaxweynaha la dooranayo maanta taariikhdu waa 10 Juun oo maalmo ay naga xigaan saacado kooban ayaa weerar iyo dhul qorsheeyeen lafta gareen iyo ciidankiisu in ay soo qaadaan isla markaana si buuxda ay ula wareegaan amniga magaalada Baydhabo ee gobolka Bay waxa muuqanaysa in xaaladda Baydhabo ay tahay mid aad u culus isla markaana indhaha ugu badan ee siyaasadda Soomaaliya xilligan ay ku sii jeedaan caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho oo siyaasadda isdiidan iyo dagaalada ay ka dhacayeen saacadihii ugu dambeeyay haddaba Baydhabo arrinkeeda muxuu ku soo dhamaan karaa aragtidaada noo reeb mahadsantahay geesta kale madaxweynihii hore ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo sidoo kale madaxweynihii hore ee Soomaaliya Shariif Sheekh Axmed ayaa si adag uga hadlay xaaladda siyaasadeed ee dalka maalinimadii shalay waadna ka wada dhagsantiin waxay si weyn u dhaliileen tallaabooyinkii ugu dambeeyay ee dawladda uu hogaamiyo Xasan Sheekh ay markaasi qaadaysay iyaga oo uu baaqay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud wada hadal si gaar ah madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa dhigay gogol isaga oo sheegay in gogoshaas uu ku marti qaadayo madaxdii hore ee wadanka Sheekh Shariif oo garabkiisa jooga isaga iyo sidoo kale madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud wuxuuna ka codsaday in madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud uu aqbalo gogoshaas maadaama ay tahay gogol markaasi nabadda Soomaaliya lagu raadinayo marka hore waxa rabaa in madaxweyne Shariif uga tacsiyeeyo falkii foosho xumaa iyo tacaddigii lagu bahdilay ee lagu sameeyay daraad heshiisna markaasi heshiiska xabad joojintana la jabiyay aad ayaan ugu xumahay ayuu yiri madaxweyne Farmaajo martiqaad ayaan u dirayaa buu yiri madaxdii hore ee dalka hadii uu diido ma uusan imaan buu yiri saaxiibada Soomaaliyeed ee u heelan inay arintan soo dhaxgalaan waa soo dhaweyneynaa dawladnimada yarta ah yaysan gacanteena ku burburin qofkii markaasi lahaa ama qofkii ay dhibayso in Soomaaliya ay burburto waa in uu xalkeeda hadda raadiyaa ayuu si cad u yiri madaxweynihii hore ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo dhinaca kale Farmaajo wuxuu sheegay in Sheekh Shariif loola dagaalamay sidii cadow oo kale ayna dawladdu doonaysay inay khaarijiso balse alla uu badbaadiyay sida uu hadalka u dhigay Farmaajo wuxuu yiri Shariif waxba loola ma harin waxa loo qorsheeyay dil iyo khaarijin waliba waxa loola dhaqmay buu yiri sida cadow oo kale oo kooxaha argagixisay hubka loo adeegsado iyo ciidanka loo adeegsado ayaa loo adeegsaday buu yiri taas oo muujinaysa in dawladda Xasan Sheekh aysan waxba ula harin madaxweyne ninka la yiraahdo Shariif Sheekh Axmed waxa muuqanaysa marka in xaaladda Soomaaliya xilligan ay tahay mid adag isla markaana aad la isaga soo horjeero haddaba xalka muxuu yahay adi ahaan aragtidaada noo reeb
muuqaalka like saar saaxiibadan u sii share garee waa mahadsantahay waxaan kula wadaagayaa muuqaalka markaasi gudoomiye ku-xigeenkii hore ee maaliyadda gobolka Banaadir Axmed Iimaan oo weerar afka ku qaaday Macalin Mahdi waxa uu yiri canugan naaxay ee Macalin Mahdi ah bambatuurka ah ama bambatuurka ahaan jiray gaari ayaa hub u saaran yahay oo guri kasto uu ku hordajinaya isaga micnaha dadka dhiiqeynaya buu ula jeedaa Macalin Mahdi ayuu weerar ba'an oo afka ah ku qaadaya ninkan odaga ah isaga oo sheegaya markaasi inuu horay u ahaa bambatuur iyo waxyaabo kale uu ku eedeeyay muuqaalkan iyo wareysiganba waxa uu siiyay telefishinka la yiraahdo markaasi Shabeelle TV oo xuquuqdiisa iska leh wareysigan ila daawo macalin shalay nin ka soo galay waa nimankii dadka dilay horta taariikhdiis markaa loo baahan kuwa shabaabka Macalin Mahdi baa shabaab ka soo galay basiisa markii hore intuu ka yimid bambatuur waa jira Allah hubo haddana shaqadu hay waa shaqa dhinaci kale wixii kale ka bilaabo laakiin taasoo kaama soo gaari karto iyo in lagu qabsado muddo gudoomiye maxaa lagu qabsanaa haday beenta lagu qabsan karo dadkii yaqaana jooga macluumaad wuxuu haajir al-shabaab waa haajir markiisii hore dee al-shabaab haajir lagu yiraani macluumaad huwa baabuur saaran guriga taga waa qoor dajiya gaasuu yiri halkaan ka soo qabtay annaga horta meesha sifadii aan xabadda lagu joojiyay iyo wada hadalkii ragii gala jooga aanu mar rabeen ka hadlo wada hadal annaga xabad joojin iyo waxa laga shaqeeyay wax walwal ama dhaqdhaqaaq booliska ama dareenten maalmaha macluumaad wax walwal annaga ka qabno loo macluumaad maxkamadna ma ahan nin professional boolisana ma aha waa canug meesha inta la keenay xaraanta ku naaxay oo bariyahan waali iyo dhibaato saaranta macalin fi qoortiisa mar rabeen inuu jawaabo waa nin mar walba hadli jiray wax xun jecel si gaaban aniga wuxuu ila mid yahay madaxtooyada laga soo tuuray ila mid yahay marka ma ficil uu soo xoray looma jawaabo weerarkii meesha ka dhacay annaga markii hore horta waxaan u tagnay meesha inaan soo booqanno dadka deegaanka maadaama xaaladii markaan ku soconay ahayd mudaharaadyo iyo waxa in la abaabulo oo sida la socotaba golo oo ku dhawaaq madasho ay ku dhawaaqday mudaharaad markaan meeshii tagnay mudaharaad meesha kama jirin markaas iyada laakiin la kulanka dadka ayaan u tagnay meesha markaan halkaa tagnay sidaan laga yaabo inaad adiga ruuxaad maqashada maalintii wax dhiba ma jirin wax problema meeshaas kama jirin dagaal uma tegin annagu dagaalna maynaan wadinba laakiin markaan meeshii tagnay oo odayaasha beesha mursade oo uu hogaaminayo maxaa la yidhaha ugaaska ayaa galabtii noogu yimid meesha oo gaaraya 70 oday oo dadka indhahoodii ah oona horkacaya ugaaska beesha mursade intii meesha la joogaba wax yar ka bacdi shantii eedaan malaynayaa ayaa xabad nagula soo bilaabay iyadoo ay og yihiin dadka meesha gelayay iyo nuucay u ekaayeen xog la'aanaysan ayaa halkaa yimideen marka xabaddu saas ayay ku bilaabatay xabad annaga aan qorshaynay iyo dagaal aan aadna midna ma hayn laakiin gudoomiye waxaa la leeyahay deegaan iyo degmo nabad ah baad maleeshiyaad iyo mushkilo la dhex tagteen ciidanka dawladdana idinkaa soo weeraray arrintaas ma jirtaa wallahi arrintaas dee waa iska been abuur iyo waxyaabahan hadda beryahan ay wadaan nimankan meesha jooga oo xukunku mar hore ka dhammaaday meesha annagu dee horta istaafyadeena nala socday wax kaloo ciidan oo aan wadana ma jirin iyo wax problema meesha nin xildhibaan aha guriga deganaayo oo ma ahayn guri oo dad rayda degan yihiin maxaa ayaan darro ah in la soo weeraro oo amar lagu soo baxsho oo madaxweynihii hore wakhtigiisa dhammaaday uu soo amro in la dhameeyo dad intaas la eg oo hal beel ah wax aad iyo aad waxaan la aqbali karin waaye marka waa arrin wakhtigeeda iyo markeeda laga xisaabtami doona haddii la yidhaahdo laakiin 70 iliid ah oo dadka indhihiisa ah oo ugaas ku jiro oo nooc walba isugu jira marka laga tago siyaasiyiinta iyo ra'iisul wasaare hore murashax madaxweynuhu meesha joogay xildhibaanada intaas oo gooni ah ayay horta dawladdu rabtay xasan sheekh oo afar in la dilo oo la soo afjaro laakiin ilaahay fadligiisa ma noqon meeshaas dawladda ka dhacay wax kulli taba siyaabo badan looga hadli doonay noqon doonaan waxaan la iloobinay noqon doonaan
ma dhici karto in la iska iloobo 70 qofood oo la leeyahay 20 saacadood baad isdifaacayseen waxaadna tiri staff baan la tagnay ciidan badan baa meesha joogay Soomaa may ciidan badan ma joogin laakiin sida wiilasha oo la difaacay ayaa mabda aaminsan inaan dadkii indhaha hayaan la leeyahay amar ilaahay iyo wiilashaasi ku naqatay waxba noolama harin hubkan iyo dawladdu waxay isticmaalaysa F16 un baa ka maqnay inta kale waxaan la isticmaalin malaha hubkii loogu talagalay in cadawga lagula diriro oo al-shabaabka dalka looga xoreeyay oo dalka lagu difaaca horta qabiil loo adeegsado madaxtooyada wala soo riday xasan sheekh wiilasha oo qaraabada leeyahay ayuu soo wacay u dhahay ma afjarteen telefoonka dadda mid kale ka wacay xogta waa sidii wax ma qarsoona ciidamada markii dambe xasan sheekh markii waqtiga dheeraaday madaxweynaha lahaa ma afjarteen yes soo ogaaskii muusade iyo siyaasiyiintii baash intaas dheer soo faysna oo la yaab madaxweynuhu ergo soo diray ergadii oo nala joogtay horta xabadda si ay badankeed bilaabay oo halkaas iga ku jira maxamed cali ogaas senataro iyo imaamkii awjaad iyo rag kale oo la socday meesha waxaa kaaga muuqata meesha hashiiq maraya horta maanta dadka hadday ka qarsoonaa jirta ninkaan nin fayo way u haystaan halkaasuu maanta maraya waxaan kaa rabaa guddoomiye subaxii markii howlgalka uu dhammaaday taliska booliiska ee gobolka banaadir hub aad u fara badan ayay soo dhigeen oo la sheegay in dagaalka laydinkaga qabtay ma hub baa laydinka qabtay taliska macallimahdi iyo shaqadiisa horta qayb gooniy u baahan tahay macallimahdi hubaa baabuur u saaran guriga tagaba waa ku hor dejiyaa markaasuu yidhi halkaanan ka soo qabtay annaga horta meesha sifadii aan xabadda lagu joojiyey iyo wadahadalkii raggii galaa jooga aanu ma raba inaan ka hadlo wadahadalaa annaga xabad joojin iyo waxa laga shaqeeyey ahayd shaqada dee gadaal wixii markaan meeshii soo galnay oo hawshii dhammaatay dhexdeeda la bedelay macallimahdi annaga ma aragba lamana sheekaysan mana la macaamilin mana dee meesha muusan joogin raggii la hadlaayey dadka ergadaa la hadlaayeyna kuma jirin xabad joojinta qayb kama ahayn mar dambe uu iska yimid sida caadada u ahaydba oo haddaba wadaba baawur hub saaran yuu wataa haddaan hub laydinka qaban sidee meeshii aad joogteen aad uga ogolaateen inuu macallimahda hub ku soo bandhigo maba joogin dee markaas annagu xaafadayna joogin mar la soo kala tegito marka dee asaa wata waxaas macallimahdi iyo shaqadiisa waa shaqo gooniye shaqo wuxuu hayaa oo cid ku amartaanaan garanaynba shalay wuxuu yidhi lagama hari doono madaxdii hore sida ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynihii hore oo dad bay laayeen sharcigaana soo jeebayn doona wax walwal ama dhaqdhaqaaq booliiska ma dareenteen maalmaha may macallimahdi wax walwal annaga ka qabna loo macallimahdi maxkamadna ma ahan nin professional booliisana ma aha waa canug meesha inta la keenay xaaraanta ku naaxay oo beryahan waali iyo dhibaata saaranta marka dee waa hadalkiisu waa in laga jawaabo mudan maaha laakiin wax welwale iyo wax dhibay nagu haysa maaha macallimada maasaa maxkamadda waa maqlaya soo dhahaya waa maxkamadahan tegaynaa waaranaan soo jaraa anaa waarankii iyo maxkamaddii iyo booliiskiiba anaa iskuhu ku leeyay macallimada shalay nin ka soo galay waa ay nimankii dadka dilaya horta taariikhdiis markeeda loo baado kuwee shabaabki macallimahdi baa shabaab shabaab ka soo galaba sidiisa marka hore intuu ka yimid bambatuura waa jira oo la hubo haddana shaqadu hayo waa shaqadii shaqa dhinacii kale wixii oo kale ka bilaabo marka macallimahdi sidiisaba laakiin taasoo eed kaama soo gaari karto iyo in lagugu qabsado mudane guddoomiye maxaa laygu qabsanaa hadday beentaa laygu qabsan karaa dadkii yaqaanaa jooga macallimad muxuu ahaa jira al-shabaab buu ahaan jira markiisii hore dee al-shabaab ahaa jira laygu yidhi aniga haye xaggaasuu ka yimid taariikh ahaan halkaasuu ka soo shaqay jira laygu yidhi bambatuuru ahaa marka ma raba dee inaan hawsha macallimahdi iyo wax welwele iyo wax cabsiyo ka qabna loo wasiirka gaashaandhigga axmed macalin fiqi shalay iyo maalmahanba qoraalluhu ka samaynaya dhacdooyinkan dagaalka wuxuu sheegay in qarnigii maleeshiyaadka aan la joogin hogaamiye kooxeedna aad tihiin oo la idin soo afjaray arrintaas maxaad u fasiran kartaan ama seed u dareenteen axmed macalin fiqi horta sidiisa ma raba inaan u jawaabo waa nin mar walba hadli jiray iyo wax xun jecel si gaaban aniga wuxuu ila mid yahay madaxfiicdii madaxtooyada laga soo tuuraayo ila mid yahay marka madficil wuu soo xoorey looma jawaabo waa mahadsanta intaasaad aad ka leedahay intaasaan ka leedahay dabcan mudaharaadyo iyo ololaad wadeen meelihii aad joogteenna waa laydinka soo saaray
hawshu ma meeshaas idinkaga eg tahay mise barnaamijyo kale aad wataan meeshan dadka shacabka maxaa u sheegaysaa may horta hawsha annaga hadda waana soo dhaaftay